بسم الله الرحمن الرحيم marka hore waxaan salaamayaa ummadda Soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan shacabka magaalada Boosaaso ku nool oo aan u tartamayo gudoomiyahooda golaha deegaanka degmada Boosaaso waxaan leeyahay ciid mubaarak kullu caam wa antum bikhair sanadkiisa bashbashi barwaaqo Ilaahayna ku gaarsiiyo haddaan su'aashaada u soo laabto anigu waxaan ku dhashay magaalada Boosaaso waxaan dugsiga hoose dhexe ka qaatay magaalada Boosaaso iyo Kansareba deetana waxaan ka sii shaqeeyay shirkad baan u shaqeynayay muddo kadib waxaan kamid ahaa uradii bulshada rayidka ah ee magaalada Boosaaso ka jiray marka dambe ayaan waxaan tacliin kororsi u aaday dalka dibadiisa waxaan sida la socoto waan ku soo laabtay dalka waxaan ka shaqeynayay gudaha dalka waxaan maamule ka noqday shirkadda Mareer Construction oo aan asaaskeeda ku lahaa waxaan ka fuliyay magaalada Boosaaso dhismayaal badan oo intiina badan aragteen ama halbowle oo ah magaalada gudaheeda waxaan sidoo kale la shaqeynayay hay'adda UNFAO oo aan muddo la shaqeynayay 2 sano ku dhow waxaan engineer uga ahaa supervisor site engineer dhismihii dekada Boosaaso jettinka dhinaceeda ah oo kalluumaysatada loogu talagalay Soomaaliyeed ee halka ka adeegta waxaan sidoo kale kamid ahaa injineeradii ku hawlanaa dhisidda wadooyinka magaalada Boosaaso oo haddan hay'adaha caalamiga ay noo hirgeliyaan sidoo kale waxaan ka soo shaqeeyay shirkado kaleeto oo dalka dibadiisa sida Malaysia iyo maxay tahay waxaan ka soo shaqeeyay oo ku soo sameeyay dhowr sanadood runtii meertanoolaadkaygu saa uma sii qoto dheera laakiin waxaan isleeyahay waad haysataa khibrad kugu filan waa haysataa kalsooni aad ku hogaamin kardid golaha deegaanka degmada Boosaaso Boosaaso waxay u baahan tahay markan cid walbana ka dharagsan tahay inay hesho qof garanaya waxay u baahan tahay magaaladu waxay u baahan tahay engineer magaaladu waxay u baahan tahay wadooyin badan baa laga dhisay magaalada dhismayaashii oo dusha iska koray waxay u baahan tahay qof garanaya maaragtay highway ka haysta background fiican sida loo dhiso wadooyinka qof ka haysta maxay tahay town planning magaalada si loo dejin lahaa khibrad fiican kale u baahan tahay oo baahna Boosaaso qof walba oo iska yimaado inuu tartamo oo helo oo hadhow caqabad ku noqoto sidii uu u wadi lahaa oo u maareyn lahaa wadooyinka u maareyn lahaa dhismooyinka la iska dhisayo aniga waxa qorshaha igu jira haddii Allah wada la igu guuleeyo inaan sameeyo master plan magaalada oo dhan ka dhameystiran tahay lana fiirin karo guri kasta iyo buqcad kasta meel kasta oo maxay tahay dhisme ka socdo xafiiska la imanayo la fiirinayo dhismaha xagee waddanka martaa dhinac ma bay maxay tahay u bannaan imise guriga kale u jira si aan magaalada noqon meel isku raran oo maaragtay sanadba sanadka ka dambeeya xaafad walba oo dhismato oo cusub aan ula mid noqon kuwii hore runtii waxa nasiib darro ah Boosaaso ilaa 1991 ayaa si aad ah loo soo degay laakiin waxa moodaa maayaro badan baa soo maray laakiin aan xil weyn la iska saarin sidii loo maareyn lahaa dhismaha magaalada inaan xil weyn la iska saarin sidii dadka looga durkin lahaa wadada loo bari lahaa wadadu inay tahay mid bulshada u dhaxaysa cid gaar ah aanay ku soo durkin taas waxaan qabaa inaan wax badan ka geysan karo bulshada wacyi gelin karo u soo bandhigi karo inta aan ka garanayo bulshada intii karaamkayga ah aan la hor istaagi doono ummadayda sidaan ugu adeegi lahaa maaragtay si daacadnimo leh mataqaana karti leh maxay tahay marka waxaan qabaa oo naftayda iyo anigu aan isweydiiyo aan isku sifeeyay qof intaas ka soo bixi kara marka waxyaalaha ugu weyn ee ku kalifay maadaama mudana magaalada ka shaqeynaysay inaad isu soo taagto shaqnimada golaha deegaanka caqabadaha ka jira magaalada aan saas waa run muddan ka shaqeynay magaalada hamigayguna oo ah muddo inaan bal mar marka ay noqoto goor ay ahaato aad hogaamiso golaha deegaanka degmada Boosaaso waayo waxa ay muuqanayay oo idhibayay wax badan oo aan anigu naftayda aan ku aamini karo isleeyahay waad qaban kartaa haddaan maxay tahay tusaale kaas iyo magaalada maxay tahay dhagax baa yaal xeebtii qashin baa yaal caalamka xeebtu waa meelaha loo damaashaad ka tago maxay tahay dadku lagu soo nafiso maalmaha fasaxa la yahay
laakiin nasiib daro inagu waxa weeye qashinkii bay qaadeenaa gaari gacan baa lagu qaadaya meeshii baa lagu daadinaya ma jirto cid u garowda ma jirto cid ka hadasha waxaan qabaa in maxay tahay inuu la mid noqono dunida inteeda kaleeto maanta ma jirto farqi u dhaxeeya Boosaaso Qardho Garowe iyo Gaalkacyo waayo mid kasta berigaanu ka degnay laakiin waxaan rabaa in badal la dego magaaladan waa magaalo badeed waa magaalo xeeb leh waxaan rabaa in xadaaradii muuqato xeebta laakiin lama rabo in qashin iyo boor iyo magaciis yaalaan tan kaleeto maxay tahay igu kaliftay waxa kamid ah magaaladii maxay tahay ma jirto caafimaad dhab ah oo maaragtay kaamili kara intii loo baahnaa oo maanta maxay tahay si dhab ah la isugu halayn karo waxaan ku rajo weynahay haddii aan ku guuleysto xilkan inaan magaalada gaarsiiyo horumar dhanka caafimaadka oo aan u qareemo oo maxay tahay geed dheer iyo mataqaanaa geed gaaban iyo geed dheer baan u fuulo sidii magaalada u heli lahayd hospitaal adeeg caafimaadka oo dhammaystiran kaamila ugu qareemo ganacsatada uga qareemo hay'adaha caalamiga uga qareemo meel kasta aan u maro xiriir magaalooyin aan sameeyo oo aragtay aan maxay tahay ku xiro dunida inteeda kale magaalada Boosaaso laakiin maan doonay inaan ku eekaado maxay tahay cashuurta yar ee ka soo xirooto waxaan rabaa in cashuurtii dhabta ay hirgeliyo magaalada oo maxay tahay guryaha cashuurteeda hirgeliyo tii caadiga ahayd uma taqaana la xisaabtan dhaba aan sameeyo marka accountability timaado ayaa wax la qaban karaa marka runtii waxaan rabaa 5 sano inaan ummadda Boosaaso aan maxay tahay iftiin u muujiyo dariiqyadii wadada waad aragtay magaalada maxay tahay malaha wax layra waa mugdi maxay tahay fiilooyin baa isu dhaxyaacaya waxaan rabaa inaan dariiqyada iftiimiyo waxaan rabaa inaan maxay tahay wadooyinka dhirayo waxaan rabaa inaan bilicda magaalada wax badan ka qabto dhagaxan magaalada dhex tuunsan inaan ka qaado oo maaragtay dadweynaha aan ugu baaqo inay dhagaxooda ka guraan oo maaragtay magaalada nadiifiyaan xoolaha dhex yaacaya magaaladii qashinka ku daadinaya ku saxaroonaya waxaas oo dhan waxay u baahan tahay magaaladan in bilicdeeda iyo fayadhowrkeeda looga shaqeeyo si dhaba wadaniyad leh maxay tahay aqoon leh iyada oo loo marayo shifo mataqaanaa sifo sharci ah